السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مركل كوزو دبادا يوتيوب جانل كيغا أسد دارو جانل وحان ما أنت إذن سو ديارني حكمدو حل إيو حقيقة qofka aamusan mar walba hamoodin inuu way xigmad uu ku hadlo balse cilmi baa ka dhex guuxaya dadka aamusan isku day inaad ka hadalsiisid kana gurtid xigmadaha ay ku hadlaan badanaa dadka aamuskoodu badan yahay waa kuwa markii ay hadlaan ku hadla hadallo xigmadaysan oo wax ku ool ah la macaamil oo la saaxiib dadka degan ee aamusan waxaad isku daydaa mar walba inaad wax ka soo baxsato maskaxdooda adigoo u adeegsanayo ixtiraam aad qofkaas ixtiraamayso si uu kugu ogolaado inaad wax ka faa'iido ha ka quusan guushaada waxaa aad ii soo jiita shakhsiyaadka wanaagsan ee tixgeliya rabitaankooda dadkana ku ixtiraama kala duwanaanshaha fikirka iyo aragtida u hadlo si qoto dheer oo cilmiyeysan wax u dalbada si xasilooni ay asluub ku leeyahan tahay u kaftama si dhab ah oo macaan cudurdaarna la yimaada markaa kadib kalsooni buuxda ku qab inuusan hoos ku dhigi karin qof aanan adiga ahayn mugdi kasta aad marayso ha ka horeeyo nal wadada ku ifinaya weliga ha iska indhatirin qof ku jecel ku daryeela ku baahan sababtoo ah maalin ayaad intaad baraarugto garan doontaa inaad dayax weyday goortii aad xidigaha tirinaysay dadku siday rabaan ayay mar waliba wax u fahmaan marka ha isku daalinin inaad ka dhaadhiciso yoolkaada boqolaal ayaa la helayaa farxadda kula qaadataa balse hal qof oo kula ilmeeya in la helo aad ayay u adag tahay qof qalbi fiican leh laakiin marna ha ogolaanin dadku inay u qaataan nacasnimo inay kaa tahay noloshu waa macallin dadku waa arday waqtigu waa imtixaan nolol caddayntu waa muhiim ninkii sabraasidkiisa heeda si aad u qabatid wax aanad horay u qabanin waxaad u baahan tahay inaad noqotid qof aanad weliga ahaan